heesta Suleekhay Aragaagu sida ay ku timid cajiib sanadkii 1986 waxaa magaalada Muqdisho guri wada deganaa Abwaan Hadraawi iyo afar nin oo ay saaxiib ahaayeen kuwaas oo ay horena uga soo wada guuleen magaalada Cadan ee dalka Yemen. gurigana ay degan yihiin shantan waxaa deris la ah guri kale oo ay degan tahay gabadh dhalinyaro ah oo jaanimo aqoon dhaafsiisan ay ka dhaxeeyeen. afar nin oo ka mid ah ragga guriga degan waxa uu mid kasta gaarkiisa indhihiisu soo jiiteen gabadhan deriska la ah. afartooda midna kale ma oga arrintiisa balse maalin ayuu midkood wuxuu qorsheeyay in guriga meel daaqad ah uu ka baneeyo meel yar oo ku beegan guriga gabadha si uu marmar halkaas uga eegto. waxay si doodi ka dhalatay kadib markii ay saddexdii nin ee kale uu mid kasta dabcay inuu isagu noqdo qofka halkan gabadha ka eegaya. Abwaan Hadraawi oo arrinta ka sheegayay wuxuu xusay in maalin uu roob weyni ka daay magaalada kadibna xaafadii ay deganaayeen uu daad badan soo galay. uu arkay afartii nin ee la deganaa oo dhammaantood bihii ka dhuraya gurigii gabadha halka kii ay deganaayeen ay sidoo kale biyo galeen. sheekadii ayaa soo shaabaxday oo mid kasta rakii wuxuu qartay in gabadhani ka mudan tahay oo uu damcay. habeenada ka mid ah waxay kooxdan oo dhammaantood baxda fanka ahaa ay dhigeen bandhig faneed dad badani ka soo qayb galeen. dadkii la soo casuumay waxaa ku jirtay gabadhii deriska ahayd. isla bandhigii ayuu hobalkii Axmed Mooge Liibaan oo aan isagu ku jirin afarta nin ee tartamaysay wuxuu ka qaaday heesta Suleekhay Aragaagu naftu waa u samirsiisa. heestan oo uu Abwaan Hadraawi ka sameeyay arrintan ka dhaxaysa gabadha iyo afartiisa saaxiib waxaa la xameeyay Bashiir Xadi Axmed markii dambana waxa qaaday Maxamed Nuur Giriig. waxayna sifanaysaa macnaha dhabta ah ee saaxiibadii uga dhigan tahay gabadhu. gabadhii waxay dhuuxday heestan oo ay fahamtay inay iyadu ku socoto. markii barnaamijkii dhammaaday ee ay kooxdiina ku laabatay gurigoodii waxay arkeen qof haweeney ah oo fadhida albaabka gurigooda la galo. markii ay la hadleen waxay arkeen inay tahay gabadhii oo sow ay ku dhibicday heestii sidaasina iyadiina lagu saaqay. markii ay la hadleen ee sheeko loo dhan yahay lala yeeshay waxay soo jiidatay in afartan nin ee jeclaaday nin loogu xulo. Abwaan Hadraawi ayaa ku yiri adigu kaad rabto la bax. nin ka mid ah ayayna sheegatay sidii ayayna ugu noqotay oori markii dambana ubad u dhashay oo ilaa maantana ku dhaqan dalka Ingiriiska. waa mid ka mid ah qisooyinkii jacaylka iyo fanka Soomaalida. daawadayaal intaas ayay idahaas hoog laga lulaa geelaa sidig loo ogaa loo baasaan laga baxshaa singaan orod lala masayn sareeda ilaahay baale. hablaha Soomaaliyeed haddaan quruxdooda saanyo haddaan miisaanka saaro adaa 19 Kelly
هذا